markii dawladii burburtay oo dagaalada sokeeyay bilowdeen ma jireen horta wax dagaalo sokeeya deegaanka ka dhacay ilaa taariikhdaas gadaal marka laga soo bilaabo dagaalo sokeeya oo maalin marlaba maalmooda waa jireen dhibka hayay wuxuu ahay burcad waxa la yiraahdo ayaa hayay oo aad ugu fara badnay amba tuugada dadku yaqaaniin ayaa ugu fara badnay dagaalada kale waxay ahayn dagaalo sokeeye oo gaagaaba xaf marna lagu maray oo dadka meelo badan haysto amba yaan maaragtaa qaybta muqdisho dhinaceed amba baydhabo iyo dadka waxa dhacayay mar bayna mareen maalin laba maalmoodayna kala raacdeen waxaan haysana naga dhaceen hore inoo gudbeen muqdisho iyo dhulkaas ay u gudbeen waa gartay dagaaladaas inta ka dhacay sidee qaabkee loo xaliyay maxaase ka soo baxay wixii dagaal idin maray lama rabo kuwa yaryarka ama burcad ha sababto ama sababo kale ha dhacaan deegaankan dadka deegaan ka dhaca sidee loo xaliyay qaabkee xalkooda dagaaladaas waxaa jira odayaal dhaqameedyo badan iyo culumaadiin iyo ugaasyo iyo imaanyo ayay qabiilaad ku qabaan dadkaas ayaa dhaxgalay qorsaanna ma anfacday waxa cadawga oo sukayna diray aan iska qabanno ayaa lagu xaliyay dadkaas duubabka iyo ah ayaa dhaxday oo kala noqday dadka kadibna waxaan anagoo saas ay nooga caddahay waxaa naga qabtay muuse suudiyada xaaji muuse kadibna waxaan anagoo saas ay nooga caddahay waxaa naga qabtay muuse suudiyada xaaji muuse nabadgelyada marka loo soo noqdo hadda midda taagan ka hor sidee maxaa dhibaatooyinka nabadgelyo ee deegaankan uu soo maray sideese loo xaliyay hadda midda hadda aad ku sugantiin ka hor kuwii ka horreeya hadda aad looga sheekeynaysa see markii nabadgelyo daradaas timaad see loo wajihi jiray amba beel kastaba waxaa u xirneed cad yar ay leedahay anigaale ayaa u xirneed iyadaa amba dadka markaas ku dhacaysa amba waa laga saba gudbaa faataxada qur-aanka naloo aqriyo ala leeyahay si aan ugu gudubno meeshaas saas ayay cid walba meeshood ugu xirneed waa maxay qaab dhismeedka maamulka hadda ka jira degmada